السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Himilo oo kamid ah barnaamijyada telefishinka dawladda Puntland aad ka daawataan toddobaadkiiba mar. barnaamijka Himilo waa barnaamij siyaasi ah oo si aad nooga barateen toddobaadba mowduuca taagan ee marxaladaha dalku ku jiro aan kaga hadalno isla markaasna aan ku falanqeyno sida lagaga bixi karo arrimahaasi jira haddii ay tahay horumarna sidii loo sii horumarin lahaa. toddobaadkan waxaanu ka hadlaynaa khilaafaadka madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya soo kala dhexgala taasi oo mararka qaarkood sababta in ay kuraasta baneeyaan ra'iisul wasaareyaal iyadoona looga bartay madaxweyne kaste ee afarta sano ee xilka uu hayo in dhowr ra'iisul wasaare ay isbedelaan taasi oo keenta khilaafaad madaxda sare soo kala dhexgala isla markaasna mooshin laga keen ra'iisul wasaareyaasha oo baarlamaanku ay kalsoonida kala laabtaan. toddobaadyada waxaa taagnayd arrin khilaaf ah oo dawladda cusub ee hadda halka sano jirsatay soo kala dhex gashay qaar ka mid ah madaxda dawladda taasi oo mooshinno kala duwan sababtay. barnaamijka ay la qayb gali doona toddobaadkan aadan maxamed ciise gaadaale oo ah siyaasi kana mid ah culimada Puntland horey isugu soo sharaxay madaxweynaha Puntland haatana ka mid ah siyaasiyiinta Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya bulshada dhexdeena aad looga yaqaano. waxaa aan barnaamijka intaan ku guda jirno falanqeyn doonaa daawadayaal khilaafaadka waxyaabaha sababa kuwii hore waxyaabaha laga bartay iyo tan waxa uu xalku yahay iyo cidda ay tahay inay ka qayb qaadato. shaqadan ugu horeyn soo dhaw Puntland TV barnaamijka Himilo. aad iyo aad baan ugu mahadsantahay. waa tahay ugu horeyn bal mowduucan aan ka hadlayno inta guda gasho bal dadka fikir ahaan waxa aad ka aaminsan tahay iyo marxaladihii la soo maray waxyaabihii laga dhaxlay. marka ugu horeysa bismillah aad iyo aad baad u mahadsan tahay inaad barnaamijkan qaybiga siisay maantay iyo guud ahaan TV-ga iyo warbaahinta Puntland aad iyo aad baan ugu shukriyaa had iyo jeer maxaa yeelay aniga waxaan qabaa inaan dhinaca negative kaliya laga fiirin ummadda laga fiiriyo dhinaca positive ama dhinaca wanaagsan wax wanaagsan had iyo jeer dadka in loo gudbiyo in la raadiyo dadka waxtarkiisa iyo cuqaashiisa iyo culimadiisa iyo mutacalimiintiisa iyo bacmushirkiisa iyo siyaasiyiintiisa iyo marka waan idinku ammaanayaa dabcan intaas in laga sii horumariyo laga badiyo waa loo baahan yahay laakiin aad iyo aad baan had iyo jeer ugu shukriyaa intii la qabtay hadba in la sii wado la sii kordhiyo la sii tayeeray waan rajaynayaa. markaan usoo noqdo arrinteena gaar ahaan markaynu ka hadlayno dawladaheena isbedbedelkooda faraha badan oo taariikhiga ah runtii waxay dadka u kordhiyaan inay ka xanuunsadaan. haddaad kasoo bilowdo ilaa iyo intii muddo ah oo dawladihii ilaa shirkii carka kadib markaas unbaa xoogaa dawlada wax rasmiyaada ay bilowdeen waqtigaasaa garanaysid aad iyo aad bay isu bedbedeleen oo dawladdaasi ilaa iyo 3 prime minister baa soo maray waqti aad iyo aad u kooban bayna soo mareen. dawladdii ku xigtay oo dawladda Cabdullaahi Yuusuf ayadana 3 prime minister iyo ugu dambeyntii madaxweynihii laftiisa oo la bedelay baa iyadana soo maray waqtiyaalka cusub. dawladdii Shariif hadaa u timaado iyadana inta prime minister soo maray waad ogtihiin. dawladdii ka 2 prime minister dawladdii ka dambeysay 3 prime minister baa soo maray. labadaa dawladood u dhameeyay madaxweynihii lama bedelin. prime minister iska ra'iisul wasaarayaashiiba aad iyo aad isu bedelay. qaarkood 6 bilood degdeg bay ku bilaabatay qaar sanad iyo bar dhibaatadaas baa dhacaysay. waxa intaas dhinaca kale ka raacay ra'iisul baarlamaanadii oo iyaga laftooda aan ka caafimaad qabin arrimahaas oo qaar la bedelo iyo qaar maxaan ku iraahdaa position kale sii gaara oo booskii xataa madaxweynaha sii qabta sidii aadan madoobe oo booskii markii madaxweynuhu isbedelay sidii madaxweyne booskiisii qabsaday iyo qaar boosaskii laga qaaday intaba way soo mareen kulligood. marka arrimaha markii gadaal loogu noqdo waa arrimo xanuun badan runtii. haddii Soomaalidu waagii hore ay u buki jirtay maxaa wax isu bedeli waayeen bugtadeena waxay markaa isu bedeshay war maal la daayo oo bal waxay doonaan baa noqdaan waqtigooda may wada dhameystaan. yani runtii waagii hore waxa aad iyo aad loogu taamin jiray kan ma la tuuro kan ma la bedelo kan ma saa la yeelo. laakiin taariikhdaas waxay keentay xanuunkeedii markii la arkay in loogu wada duceeyo ilaahay ay wada joogaan inay ducadu noqoto ama xumaadeen ama wanaagsanaadeen. waxaa ka mid ah dawladdani markay timid qaybta loogu duceeyey waxaa ka mid ahayd inay sanad ay wada joogtay kulli waa aysan dhaqdhaqaaq yeelan. arrintaasi waxay ka mudatay ummadda
inay credit siiso inay duco siiso inay kalsooni siiso intaan bal la gaarin wax kale inay wada joogeen wada joogooda lagu amaano lagu ammaanay iyo iyagoo wada joogo haddana khilaaf uusan kasoo dhex bixin aad iyo aad baa loogu ammaanay intaa markaa kasoo gudubto maanta xaggee joogdaa waaye isbuucii lasoo dhaafay ilaa maantay waxaa yimid runtii waxa la yidhahda gilgil fara badan baa yimid gilgilkaasi wuxuu ka yimid waxyaabihii ama suuqa ku jiray ama soo shaac baxay oo ay ka mid tahay ra-iisul baarlamaankii in laga keenay maxaan ku idhaahdaa dhaqdhaqaaq oranaya arrintiisa capabilitygiisa shaksiyadiisa hogaamintiisa su-aal in laga keenay su-aashaas marka in su-aal la keenaa waa arrin iyada lafteedu level mucayana u baahan oo maxaan ku idhahdaa lagu falaqayn karo xaalkiisa dastuur baa la dejiyey ama xeer hoosaad ha noqdo ama midka guud ha noqdo imisaa lagu fiirin karaa horta in la fiiriyooo sharci ahaan lasoo bandhigo ma la eegi karaa xaalkiisa ilaa iyo number bay u baahan tahay ilaa 101 miya maaqan haddii numberkaa la helo arrintiisa in gadaal loogu noqdo marka waxaa la baarayaa gadaal noqoshadaasi waxay leedahay levels markaa kala duwan iyada lafteedu oo wixii la keenay oo la yidhaha la fiiriyo arrinkiisa ma cuntamin mise ma cuntamin waa darajo kale hadday cuntami waayaan wixii meeshii bay ku dhammaanayaan ceebteedu waxa weeye xataa hadday dhammaadaan oo cuntami waayaan oo la yidhahda ninkan arrintiisii sax bay ahayd wixii laga soo jeediyana wax dhibaato ma yeelan ugu yaraan calaamad baa ku dhegan number aad iyo aad u fara badan oo ilaa 100 xildhibaani inaysan kalsooni u hayn marka qofkii xanuun bay ku dheeraysaa hogaamintiisii bay dhaawacaysaa caafimaadkiisii bay dhaawacaysaa garsoorkiisii iyo cadaaladiisa xubnihiisa bay dhaawacaysaa cudur aan awal ku jirin oo ahaa yani hadduu ummadda maskaxdiisa uu fiirin lahaa maxaa ummadda dan u ah hadda wuxuu aada u fiirinayaa siday isaga difaacdaa waxa kugu soo socda iyo cadowgaaga iyo arrintii internal waxay isu bedelaysaa arrin hoose oo qofka maskaxdiisii fogay bay soo dhaweynaysaa xagga usoo jeedinaysaa marka waa haddiiba uu aan arrintiisa xataa waxba laga soo qaadin ama intii wax laga soo qaado uu guulaysto weli xanuunkaasi waa haynaya haddii laga guulaystana oo arrintiisi levelka intay u gudubto oo weliba levelkaasi uu noqdo haddee 2/3 of the members la 3 meelood oo 2 meelood xubnihii baarlamaanka ay kalsoonida kala noqdaanna taasi waa culays kale oo qofkii meeshii inuu markaa ka baxo ha ka baxee midka dammo imaanayana cudurkii laftiisi waa ku jiriya oo wuxuu leeyahay adna goormaa lagaala noqonaya ama yaa isku koox noqonaysaan intuu soomaali u fikeri lahaa wuxuu u fikerayaa yaa ku badbaadin karo aad saaxiib la noqotaa ma dhinaca xukuumadda ma dhinaca baarlamaanka xubnihiisa ma dhinaca shacabweynaha meel unbuu wuxuu u fikerayaa siduu u noolaan lahaa waktigaas dowladda ka dhiman taas waa ra-iisul baarlamaankii waxaan ka nabadgelayn xukuumaddii markay iyadu moog tahay waxaa jira mahmaha ay yidhaahdaan qolyaha ingiriiska if you straight my back I will straight yours haddaad dhabarka ii xoqdo anaa dhabarkan kuu xoqaya yani haddaad macnaha haddaad ixsaan ii samaysa anaa ixsaan baan kuu samaynaya macnaheedu waxa weeye haddii nin la taabto kuwi kalena taabashadoodii waa soo baxaysaa bari waxaa dhici karta in la yidhaahdo waxaa la haystaa ra-iisul wasaarihii waxaa la haystaa madaxweynihii waa xalaqad mar hadday furanto isdabageli kara hawl bilaabatay marka intaas un waxaan ka oran lahaa anyway dowladdan wixii markii hore loogu farxay ama laga rajaynayay hadda waxaa muuqata inayba xalaqadii bilaabatay oo xanuunkii keeni doonto anoo rajaynaya in damage control waxa ay yidhaahdaan ama joojin la joojiyo oo dhig joojin la sameeyo oo wada heshiis la sameeyo oo mushkiladii la xaliyo anoo rajaynaya taasna gadaal ka oran doona laakiin waxaan leeyahay calaamadii markii hore tan loogu faraxsanaa hadda waxaa bilaabatay hawshii wixii laga baqay laftiisii inuu soo noqday waayahay marka la fiiriyo dabcan Soomaaliya waa sheegtay dawlado badan oo ilaa iyo dawladda siyaad bar wixii ka dambeeyay wixii dawladda dhisay wax iska caadi bay noqotay in ra'iisul wasaare la bedelo xitaa mararka qaar kood madaxweynaha la bedelay khilaafaadkaas marka maxaa la oran karaa sabab u tahay su'aal wanaagsan khilaafaadkaasi sababo badan bay leeyihiin sababaheeda waxaa ka mid ah sababaheeda wada shaqaynta labada qof ama saddexda qof ama heerka ugu sarreeya ee dawladda oo wada shaqayn waaya qayb bay ka tahay wada shaqayn la-aan ama dabeecad ha noqoto ama maxaan ku ihahdaa waxyaa xurguf hore awal u dhexaysa ha noqoto ama shaqada wax ku dhex maray ha noqoto wax arrin wada shaqayn ku saabsan waa qayb bay ka tahay waxay kaloo qayb ka tahay han
dadkaas madaxda ahi mid ka mid ihi inuu han ku jiro hebel booska ka bedel adiguna booska tag ama qofaa rabta keenso meesha adigu diiq ka noqo intuu hebel diiq ahaan lahaa soo gartay ma iyadoo waa mushkilad kale oo arrintaa wada waxa wada mushkilad kale oo dhaqaale baa mararka qaarkood keenta oo in wax la dhaqaajiyo iyadoo xataa aan mararka qaarkood waxba balaayo weyn jirin ama wax lagu dul qaadan karaa jirin qoliyihii baarlamanka iyo inay maalmahan intay lacagihii ku yaraadaan la yiraahdo waa inaan wax ruuxnaa saynu lacag u helno oo ruuxidaas lafteedu ayaantan waxay noqotay very good profession yani aad loo yaqaan shaqo aad loo yaqaan oo ay wadadan waxyaabaha aan soo maray waxa kamid ah waxaan maray wadada isku xirta burco iyo garowe markaan laascaano dhaafay baa jid meel waxa la ii sheegay meesha waxa la yidhahdaa dahabshiil baa la yidhahdaa baa lagu yiri markaasaan uma dahabshiil baa shaqo ka furatay markaasaan yidhi maya nimanka gaangiiska ah oo wax dila baa waxay markii meeshaas waa meel xoogaa dowladaha ay ka fog yihiin oo iska cidla ah hawda bay markii ay rabaan inay wax dilaan buu wuxuu ku raacaw dahabshiil baan aadaya macnaha meesha laamiga cidlada baan habeenkii istaagaya wixii soo mara baan dilaya xarashan saan lacag uga soo qaato marka bangi bay noqotay lacagta laga soo qaato marka dahabshiil aniga marka waxaan yidhi meesha waxa fiicanayd intaanan barin inaa ii sheegtaan hadda dahabshiil magac fiican buu ahaaye hadda ma dhigshiil booyi waa dad meel dad lagu dilaayo bay waxaad ii akrinaysaa yani u fiirso magacii baa lagu bedelaya marka baarlamankii baa wuxuu u baahan yahay dhaqaale waxa ku filaan waayey wixii ama madaxdu ay siinaysay iyo mushaharkoodii iyo waxay shacabka ka qaadanayeen iyo hay-adihii kale iyo laaluushka ay ka cunayeen wixii baa ku filaan waayey markaasaa waxa afkii baa intuu kala tegay maskaxdii baa intay ballaaratay hungurigii bani aadamka haddii meel kuma joogsan karo bay waxay u baahanayaan runtii inay aada u ruuxaan markaasay u tegayaan ra-iisul baarlamaanka ruuxayaan oo prime ministerka ruuxayaan oo madaxweynaha ruuxayaan oo mid kale ruuxayaan oo waddankoo dhan ruuxayaan oo innagoo dhan wada ruuxayaan qalbigay iyo ruuxayaan madaxay ruuxayaan ummadday kala dilayaan ayagiibaa waxay yihiin meesha tijaaradii loo tegay qayb weyn oo ka mida wey so there are so many maxaan ku rahdaa contributors ama waxyaabo badan oo ka qayb qaadanaya in dadkana ay iskhilaafaan baa jira ee hal shay ma aha laakiin hay-addu golaha shacabku waa hay-addii sharci dejinta waa hay-addii la rabay inay xukuumadda la xisaabtanto taa beddelkeeda ma la oran karaa iyagoo shaqadii saxda ahayd ku taagan oo doonaya inay la xisaabtamaan xukuumaddan shaqadeeda ka gaabay sidaa darteed bay u ceyrinayaan dhinacaas aad hadda u dhigtay maaha ma la oran karaa waa la oran karaa oo dee sababaha badan marka dhinaca ka tustay waa dhinac kaloo dhici kara waa dhinac kale waxaa dhici karta dowladdii lafteedii ama waxaan ka wadaa xukuumaddii dowladdu waa la wada yahay laakiin xukuumaddii markaa jirtay oo markaas shaqaynaysay ama executive-ka waxa la yidhaahdo baa waxaa dhici karta inay dadka qaarkood qoonsato waxay rabtaa ku qoonsato ama baarlamanka effectivenimadiisa yani baarlamankan waxaan shaki lahayn intii hadda baarlaman soo martay baarlamanka loogu jecel yahay wey iyadoo hadda waxyaabaha aan sheegayna ay jiraan and this is a fact waxa runa oo aan qarayno wey waxaa loogu jecel yahay dhowr sababood kow madaxweyne ay doorteen oo ahaa yani waxa la oran karo maanta the popular president yani qofkii ugu maxaan ku rahdaa ugu muuqaal dheeraa dadka ay raadinayeen ma xun yahay ma fiican yahay ma wanaag baa kusoo baxay xagga iga dhig waxaan rabaa inaan ka hadlo mujtamaca aragtidii ay qabeen taageerada bulshada ka haystay waa qofkii ugu muuqaalka dheeraa qofkii ay rabeen oo shacabku doonayeen ugu muuqaalka dheeraa inay doorteen hadda mana ahayn ninka ugu lacagta badnaa mana ahayn ninkii kursiga ku fadhiyey mana ahayn nin la filaayay weliba mana ahayn dowladaha waaweyn nin la socday asbaabtaasoo dhan oo jirtay inay intay wada khilaafeen ay ninkaa doorteen president u doorteen baarlamanka maanta jooga weli shacabku waa u ducaynaya waa ku niyad weyn yahay wax wanaagsan baa laga haystay wax kaloo laga haystay oo ay ku khaasanaadeen oo isbuucyadii ugu dambeeyay ay darajada ugu sarreeya ku gaareen oo aad iyo aad loogu jeclaystay mawaaqifta ay ka qaateen yani maxaan ku ihahdaa dalka sovereigntigiisa waxa la yidhahda ama dowladnimada mawaaqifta ay ka qaateen oo weliba degdega ahayd oo aysan isku khilaafin oo hal go-an ay ka wada qaateen oo wada taagan oo yidhaahdeen waxaasi dalka kuma habboona aad iyo aad baa loogaga duceeyey aad iyo aad baa meel walba adduunka o dhan yani inta kumentiyada laga qoray waxaa laga sheegay aad iyo aad baa loogu jeclaystay now iyadoo saan lagu jeclaystay in waxay marka yimaadeen marka su-aashaada marka waxay imanaysaa ma qoladii xukuumadda baa oontaani u cunami weyday onlinekaani meesha uu ku socdo iyo nimankan si effective yihiin waxa la yidhi iyaga laftooda hala kala daadiyo oo dagaal ka soo galay
mase iyaga laftooda mushkilo dhexdooda ka timid weeye taasi waa arrin u baahan in hadhowti facts and figures la akhriyo laakiin labaduba way dhici karaan waayahay sanadkan dabcan madaxweynuhu markii la doortay madaxweynaha shacbiyadda badnaa ee farmaajo wuxuu keenay xasan cali khayr nin dhalinyaro ah oo ra-iisul wasaare ah isna xukuumad buu soo dhisay xukuumaddii baarlamaankaba wasiiradii badankooda ha ka yimaadeen marka arrintu hadda gudoomiye baarlamaanka maalin soo dhaaf markuu shir jiraad qabtay wuxuu si toos u sheegay arrintan ra-iisul wasaaraha ka dambeeya horey uma dhici jirin dabcan ra-iisul wasaareyaashii hore mooshin baa laga keeni jiray iyagoo ku haya aan isdifaacna bay meesha ka bixi jireen iminka laakiin gudoomiye baarlamaanka wuxuu leeyahay ra-iisul wasaarihii baa gole shacabka usoo dhigtay taasi oo kale ka hor taasi waa eedayn cad eedayntaas run ma tahay mase maya anigu hadde ma ahi qaadigii ka dhexeeya labadooda run ahaantii yani waxaa rabaa inaad meel mowqif ah iska tahay siyaasadaha waynu taxliilin karaa laakiin ma oran karo ra-iisul wasaaruhuna 100% warka uu sheegay warka laga sheegaya waa run ra-iisul baarlamaankuna warkuu ku dacwoonayo waa run ma oran karo laakiin waa dhici kartaa aad iyo aad bay u dhici kartaa weliba waxay aada ugu dhici kartaa oo in ra-iisul baarlamaanka uu run sheegaya ay ku dhici kartaa inuu intuu dacwooday waxyaabo uu ku dacwooday oo uu sheegay baa intaan anigu ogahay ra-iisul wasaarihiina uusan isdifaacin uusan war intuu soo saaray uu oran warkaasi waa been baa la iga sheegay anigu kama soo horjeedo inaana ka soo horjeedin tan iyo tan baa daliil u ah haddana diyaar waxaan u ahay inaanu heshiino wixii dhibaato ah mawaaqiftaas oo laga filaayay kama ay muuqan ilaa hadda lagama hayo marka taas tuhunkii bay sii kordhinaysaa weli xaqiiqa ma ah laakiin tuhunkii way kordhinaysaa marka la fiiriyo maalmo dhoweed xildhibaanadii shirayay ee lahaa gudoomiyaha baarlamaanku ha is asilo ama codka kalsoonida lagala laabanaya waxaa ka mid ahaa oo aad uga dhex muuqday weli dadkii hadlayay ka mid ahaa xubno ka mid ah golaha xukuumadda ee ra-iisul wasaarahan markii dhinacaas la fiiriyo cidda ugu cadcad ee ka soo horjeeda gudoomiyaha baarlamaanka ay u muuqato oo dadka hadlaya ay yihiin golihii xukuumadda arrintu inay arrin xukuumadda ka socoto tahay soo lama safiran karo waa qodob si aad ku daraysid hadda ma wax ku dhici kara inay arrintaasi sidaas tahay laakiin weli ma hayno xaqiiqo dhab ah oo maxaan ku rahdaa prime ministerku ama qoraal uu qoray ila adduunyada moogtay marka factska laga hadlayo qoraal uu qoray ama qirasho uu qorto meel cad ka yiri laakiin farta waa ku fiiqantay aad iyo aad bay ugu fiiqantay oo taa sheegtay baa hadda ka mid ah iyo tii ninkii dhibaatada sheeganaya oo ra-iisul baarlamaanka uu ku cadeeyo yiri ninkaas aniga iga dambeeya waxa ka mid ah tii uu yiri maxaan ku rahdaa annaga ciidankii noo joogay baa la haysto ciidan isaga wato baa meesha la igu keenay oo raba annaga in la qabsado waxaasoo dhan waa calaamaad muujinaya weli ma oran karo 100% waa sax laakiin waxay aniga ila tahay waxa Soomaalidu waxay yiraahdaan ciyaar xilli ku jira maxaa habeenkii loo tumaa waxay yiraahdaan qoliyaha Ingiriiskuna ugu maamula waxay yiraahdaan haddaad aragto qiic haddaad aragto dab baa ka dambeeya ma hadda qiic meelkaas baxay aragtid qaacis ma baxo aan dab salka ku hayn marka waxba salka ku haysta marka hadduusan prime minister arrinta iska difaacin hadda suuqi waa u gashay warkaasi anigu markii qaadinimo noqoto kuma xukumi karo laakiin suuqi aad iyo aad bay u gashay I hope inuu hadalkayga intuu maanta maqlo hadduu warkaasi uusan ku jirin inuu si publiga isu difaaco oo yiraahdo warkaa anigu kuma jiro ama kama jiro hadduu ku jirana oo uu qayb ka yahana inuu caddeeyo ilaa caafimaadka fiican oo yiraahdo anaga ninkan ka horin waxaan uga horin intaasoo ceebood baan ku hayaayo dowladda iyo dalka uu kaga horyin oo hadduu wax qalada ku hayo uu la yimaado laakiin aamusnaantiisa caafimaad uma aha waayahay waxaa jirta oo kale dabcan dee dowladdu ma ahan labadaas gole oo keliya golayaal kaloo dowladda baa jira marka arrintan oo kala dhacdo golayaashii kale ee dowladda ahaan aqalkii sare qaybtii qolihii waaxdii garsoorka madaxweynihii doorkooda muxuu yahay waa su-aal wanaagsan su-aashaasi waxyaabahan oo kale markay dhacaan waxa ugu horeeya oo la sameeyo waa waxa la yidhahdo damage control waa waxa la yiraahdo dhiig joojin waa waxa la yiraahdo xal helid degdeg ah waa waxa la yiraahdo dhexdhexaadin arrintaas ugu horeysa waxaan hadda shaki ku jirin in doorkaas dadka xukunka iyo qaybtay doonto ha noqoto qaybaha hadda aad tilmaanto o dhan inay ka gaabiyeen waa intaan ognahay publicna looma arag privatena lama maqal qolada aqalka sare un baan ogaa u saartay guddi arrintaasoo
yiri aan khilaaf ka xalino laakiin wali cid kale si toos ah uga hadashay arrintaas oo dhan arrinta waxa ugu horeeya oo wax in wax ka qabta ay waa madaxweynaha horta kow maxaa yeelay saddex nin oo dalka ugu sarreeya waa saddexdaa nin maxkamad sharciga weli lama samayn hagaagsan khidadii yani wax badan baa waddanka ka kala dhiman saddexdaa nin iyagaa maxaan ku rahdaa ciyaarta iyagaa hogaaminayay iyagaa barnaamijka wada waxaa la rabay haddii laba isku dhacdo kan saddexaad inuu oday u noqdo iyo dhexdhexaadin oo midig iyo bidix u ka dhigto labadooda oo uu soo dhaweeyey oo yidhahda dhegeysta maxaa isku haysaan waxaynu isku haynaa waa doonin aynu wada wadano mid idinka inaga mid hadduu dego intay dhakalna waa degayna marka iyaynaa wada degine aynu isnabadgelinno oo aynu safegarayno meesha ugu dambeeya madaxweyne shaqada ugu badan oo qabtay inay shaqadan noqotay ahayd hadday laba kale isqabtaan ka saddexaad oo kale inuu saa isu taago bay ahayd arrintaas waxaan isleeyahay gaalin baa ka jirta wayna ahayd into haddaa mid la safatana waa dhib haddaada waxba ka orana waa dhib labada dariiqaba waa lagu degayay waxayna u badan tahay yani mar hadday xalaqadu furanto inay hadde waxa weeye ay noqoto halka alif ka xigay oo aysan qof keliya ku ekaan ma garanaysaa taas marka waa dhib waxaan kaloo ku darsanayaa oon arrintaan raacinaya waktiga ay kusoo aadantana waktiga ugu xumaa waay waktiga ay kusoo aadanay waa waktiga ugu xumaa saddex sababoodba marka la fiiriyo waktiga ugu xumaa weeye baarlamanku go-aanada hadda ay qaateen oo dawlado ay ishortaageen iyo dalka soo celintiisii ay ka hadleen iyo siyaasaad dalka taabanaya oo ay dhici karta xataa dagaal in la galo waxay dhici karta mowqifka dawladdu maanta ay qaadatay oo hay-adaha qaarkood oo dalkeena iska maamulanaya iyo dawlada qaarkood inay yidhahdaan dalkeena kama shaqayn karaan ay yidhahdaan sida haddaba calaamaadka muuqanaya iyagiina ay caddeeyeen dalka dagaal baanu ku qaadayna soomaaliya waanu kala jarayna ciidan baanu keenayna oo aysan qarsan adoo marka dadkii indhahooda isku soo jeediyey oo rabay waqtigii dalka inaad difaacday waqtiga ugu xanuunka badnaa markaa tira arkooy oo dadkii ugu soo jeestay inaad tira oo anaga is haysana sooy oo dagaalka idinku isku bilowdaan anigu macnaheeda arrintaa ma garan aad iyo aad dadka soomaaliyeed inay garan doonaan u malayn maayo xanuun badan bay ku keenaysaa ma dhihi karaa dawladahaas laftigooda lug kula arrinta aad iyo aad bay u dhici kartaa laakiin xataa hadday lug kuleeyihiin yani ma qof maanta doqonaba jiro ilaa hada alxad aan garan karin nimaad la dagaalantay inuu meel walba kaa soo geli karo walaalkaa kaa soo geli karo gurigaa kaa soo geli karo xaaskaaga kaa soo geli karo baarlamaankaaga kaa soo geli karo madaxweynahaaga kaa soo geli karo prime ministerkaaga kaa soo geli karo culummada kaa soo geli karo baaministeriga kaa soo geli karo ma arrin qarsoonba ma arrin aadan garan karinba waa inaad ku tala gasho waa inaad u tooga hayso waa inaad waxyaabahaasoo kalen og tahay absolutely they have no justification wax ay arrintaa ku tabriiriyaan ma haystaan cid baa ka dambaysa hebel baa isoo dilay waa doqonta warkeeda lagu yaano moogtahay doqon waxaa la luuq weydaa xabeeb bay maxay oran jireen xabeeb bay marka taaqda eedaysa hedha hargab baa haya maya luuq xun adeer ka caliyo hargab kuma hayeen marka yani arrintaa inay ku talagalaan bay marka inan dadka ku soo aadan awgeed iyo cadowgan waqtiga ay marayaan waddanka la gaarsiiyey inay dagaal dhexdooda keenaan momentumka noocaas the worst baan oran karaa waa kii ugu xumaa waxa kale oo ay waqtiga ugu xumaa ay tahay iyagoo intay sanad soo joogeen la rabay balaanadoodii inay fuliyaan shacbiga himmad weyn u hayaan iyo dowladnimo in maanta wax laga qabto oo laysku xiro oo iyaga dowlad goboleedkii la dhexaadiyo khiddo wanaagsan loo sameeyo oo dalka militarigiisa la dhiso oo ciidamadii kaloo shisheeyay si looga saaraha laga fekero oo nabadgelyadii iyo maxaan ku idhahdaa in laga shaqeeyo u baahan oo dib u heshiisiintii ay tahay momentumka ugu daran oo ugu weyn intaasoo hawlood waqtigii la dhaqaajin lahaa dowladdu sanadka ugu horeeya waxay ku jirtaa isbarasho iyo meeltegid iyo halakan iyo hawshaasi ku jirtaa markii ay shaqadeeda bilaabi lahayd waa maanta kow shaqadii ay bilaabi lahayd oo waddanka ka bilaabi lahayd inay iyadu isku bilowdo mase daradii ugu xumayd wey ma garatay ayadana waa qodobka labaad ma garanaysaa qodobka saddexaad oo iyadana ay ugu xun tahay in la sameeyo waxa weeye in dawladdan wixii layslahaa way ka badbaadaysaa oo dawladii hore ay ku halaagsameen inay nafsa dariiq usoo noqoto oo noqoto noqodsa weyne iyadana waa xun saddexdaas sabab oo midna uguma fiicnayn dagaalkaasi maanta inuu bilowdo waa ka baxa waaya aad u maadsantahay arrinta kaloo taagan waxay ahayd xukuumadihii hore ama ahaatee ama tanba ha ahaatee waxaa wasiire ka ah inta badan xildhibaanadii niman ka tirsan hay-addii fulinta ee la rabay hay-adda sharci dejinta in la xisaabtanto labadii kursiba nin baa isku ah taasi caqabad ma ku noqon kartaa dowladnimada taasi waxay ku tahay caqabad dowladnimada waxay caqabad ku tahay waxa la yidhaahdo dastuurka waxay caqabad ku tahay
wax wada qaybsiga awoodda bay caqabad ku tahay. This is what they call conflict of interest adduunka. Conflict of interest laba shaqo iska soo horjeedana isku haysta waay. Yani waa aad bay akhlaaq xumo u tahay inuu qofku yiraahdo isku noqdo xaakimkii iyo maxkuumkii labadaba. qofkii dad kale xukumayay ma arkaysa oo isaga xukunka dejinayay xukunkiina gacanta isaga xukunkiisa gacanta ugu jira wixii la xukumayay isaga gacanta ugu jira labadiiba isaga isku haysta. ma garanaysa qisada aan ku sheegay ajaa'ib kale waxa kamid ah hadda kitaabku uu xasuusinayo nin la oran jiray qaado shureex oo muslimiinta wax xukuma ninkii ugu yaabka badnaaya oo 60 sano ahaa maxaan ku raad waxa la yiraahdo superior court madax ka ahaa dawladda darajada ugu sarreysay ee maxkamadda fadhin jiray 60 sano ayaa qisa ku timi waxa kamid ahay waxa isa soo dacweeyay xaakimkii muslimiinta oo marka Ali bin Abi Talib iyo maxaan ku iraahdaa nin yahuudi oo muslim baan ahayn shayga isku soo dacweeyeen waxa haysta ninka yahuudiga ah ba shayga gacanta ku haya shariicadana waxa la yaqaan adduunka dhan waa sidaas minta maanta aan islaamka ahayn iyo islaamka asal ah qofku gacanta haduu ku hayo proof ku haysta macnaha waxa haysta bayina xujo haysta hadda adiga maanta igu qabsatid shaatigan aan qabo hadda igu qabsatid dadku dhan waxay ka marxaad ka shaatigan aan qabo marka adiga waxa leedahay ma aanu iga dhumay baad ku doonaysaa moogta laakiin hadda aan qabo marka qamidaydu waa xujo adiga marka xujada ma haysid adiga marka waxa laga baahan yahay ina ila soo simantid oo xujo ah ina marxaanti u heshid marka wuxuu weydiiyay qaadigaasi xaakimkii muslimiinta oo dhan madaxweynaha oo marka amiir ah wuxuu weydiiyay wuxuu yiri ma haysataa marxaanti ma haysataa marxaantiyalku soo ururiyay baa waxa kamid ah wiil uu isagu dhalay oo nabiga awoow u yahay xasan oo awoow u yahay baa kamid markaas wiilkayga kamid ah hebel baa kamid ah bukeer markaas wiilkaagu marxaanti kuma galo waa conflict of interest hadii wiilkaagu isku shay baatii markaas oo soo ma ogid xasan iyo xuseen dadku nabiga jannada ugu bishaareeyay inay kamid yihiin markaas waan ogahay ta ma aha iyaga in sharciyan la qaldaayo oo nima fiican ma aha iyaga faasiqina qisada ma taagna buu yiri laakiin qisada exactly waa conflict of interest shubha meesha ku jirta oo ka xukumay markaas يعني waxa laga xukumaya madaxweynihii ugu sareeyay adduunka muslimka baa yahuudiya loo xukumaya diinta islaamka iyo cadaaladdeeda iyo xukunkeeda meesha ka joogto macnaha marka waxa u jeeday arrinta hadda aad ku keentay ninkii xildhibaanka ahaa inuu wasiirkiina noqdo xildhibaankana noqdo dayaalna xukumayna marka weeye marka bilmunaasaba Puntland cudurkaas mushkiladani waxa weeye waa dastuurka Puntland dastuurkeedu waa ka duwan yahay arrinka ninka xildhibaanka ah wasiir la noqon karo إلا إنه حل بنادي تورا مويان وزير لبدا بوس لا يسكون قبل كرو فالدولة الفدرالية قدر كاسي قبتها مركا وأنه نقول يست كونستيوشن يعني محن كل الدستور خلافات كانوا كاين خلافات كنا قيبي كتار مركا يعني اللي بعتبر مركا إلا جوجي أو غير وأهرين كلام ما دام أنا دقوا أهرين تحس ده وحنو بيري حسيت حسيت ميلك على يصل كلها وما هكرية بوسيش كي ولا إسقاه يستكريه ما هو اللي كان إسقاه يصل لكن وحي يصل كلها هاي دستوركي ويضنا إلا الصحوب بحنا waayahay aad u maasanta ee halkaas dadka ugu iftiimisay arinta hadaan soo noqono isla khilaafkeena iyo mowduucan hadaan ku soo laabano doorka ugu weyn waxa la habaa madaxweynaha oo ay tahay inuu labadan nin isaga labada nin ku xigay labada jigay dalka ugu sareysa isaga marka laga soo tago ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo hadda walowda aysan ra'iisul wasaaruhu sheegin laakiin gudoomiyaha baarlamaanku si cad u sheegay in weerar ku soo qaaday inuu dhexdhexaadiyay ahayd baatiri marka madaxweynaha ilaa hadda ma hadlin حالكم مركم ما إن ميديا اللي إسكال هذول هذول الإسداية مسوين لو تبتوا. حالكم good question حالكم لبدا بواجه حالكم في لبدا بوجه مركب وجهر هي قاعد مجرد جرهاس باللودقة ما فاهم زمان ما هذا قاعد مجرد جرهاس باللودقة معناه هذا كله دقيق جيكي صوت دم أو كاري أنا جيل يبلاي يدقويا اللي وفر ليس مركب أنت هو سهلو دقو ميلها كره الآن معناه وحوي أنت كان دولة أرض ويل وأنت الأرض النوالي هذا in hoos la isugu noqdo oo private loo wada fariisto oo hoos la isu jageeyo oo ceebaha la isu sheego oo waxa loo xaliyo waa number 1 hadii arrinta wax lagu waayo oo arrinta ay shaqeyn weydo si aad dadkaaga iyo dawladnimadaada iyo hogaamintaada wax uga qabatidna waa inaad banaanka isu soo dhigtaa oo tiraahdo maxaan ku yiraahdaa waxaan codsanayaa dawladdu inay heshiiso annagana waa ka shaqeynaynaa horeyna waa shaqaan uga galay waxbaa noo socda dadka leadership inaad isdid waayo inaad iska aamusid meel isku soo xirtid عاوي وحنا نقول ديكتي دولة المدى هذه عاوي وقامين هذه عاوي مقعد عاوي حماش وفر ده مش محاور ده
sidii saaqba in wax loo qabtaa loo baahan yahay hoos ahaantina xataa dadkii waa degayaan qalbiga haddaad tiraahdi waana ku jirnaa waana qabanay meel fiican bay noo maraysaa waxaana ka codsanaynaa ummaddu inay noo soo ducayso wax nala qabato ciddii tala nagu dhaanta iyo tabarna inay noo soo gurmato wanaag baan wax walba ku dhammaysanaynaa madaxweynuhu waa laga rabaa publicna inuu hadlaa laga rabaa privatena inuu galaa laga rabaa labadaba waa laga rabaa waaya labada mas-uul iyagu ishaya iyo madaxweynaha marka laga soo tago hay-adihii kale dowladdana laga soo tago ururadii bulshada rayidka ah siyaasiyiintii oo soomaaliyada adugu aad ka mid tahay dowlad goboleedyadii maxaa la gudboon iyaga marka arrintaasoo kala dhacdo si dalka loo badbaadiyo waxaa la gudboon mas-uuliyad baa saaran kulligood aniga mas-uuliyad baa isaaran hadda hadlaya adiga saxaafadda jooga mas-uuliyad baa ku saaran ka soco siiqwo qof walba ciidankay saaran tahay wasiiraday saaran tahay dowlad goboleedyaday saaran tahay dowladda saray saaran tahay qof walba maalqabeenkay saaran tahay horta qof aan saarayni ma jirto waana meeshuu nabigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta idinka mid ihi waa gaarhaye kastana wuxuu gaar kaga hayaa la weydiinaya qof kasta idinka idinka mid ah marka qofba meel bay u joogtaa aniga waxay ila tahay iyo adiga hadda meesha inoo joogta waxaa ka mid a meelahan inaynu ka hadalno oo waanadan oo kale aynu u gudbino waa qayb ka mid a oo maanta aynu gudbinayno aynu leenahay waa in saa wax loo qabtaa waa in saa la yeela waa inaan faraha lagu mudo waa in la tusa maaha inaynu dagaal ku hayno maaha inaynu necebnahay maaha inaynu caayayno maaha inaynu kasoo horjeedo bilcaks waxaan jecelnahay oo ku ducaysanaynaa inay nabad wada qabaan oo laysku heshiiyo oo dowladda dhinac wada socoto oo cadowga keliya la fiirsado inagu aynaan cadow gudaheena isugu noqon dagaalka aynu ku jirnaa kaa waaye inaynu marka meelahan u marino ilaa hadda muqdisho ma wada tegi karno telefoonadooda inoma wada sahlana maxaa marka inoo sahlan siyaabahan oo kale inaynu yeelno iyo meelaha kaloo babligaaba inaynu ka hadalno taasay marka ku jirtaa oo wax laga qabto qofkii marka level kale ah oo ama telefoonkooda haysta dowlad goboleedyada kale dowlad goboleedyada ay ka mid yihiin ama ay ka mid yihiin wasiirada ama ay ka mid yihiin dadka la taliyaasha madaxweynayaasha iyo prime ministerka iyo ra-iisul baarlamaanka la taliyaal bay leeyihiin la taliyaashooda ay ka mid yihiin dal iyo dibad meeshii rabaan ha joogaane hadday daacad ka yihiin ilaahay wax waa u sakhiraya waayna dhici kara ilaahay inay wax ka qabtaan yacni haddaynan wax ka qabanna public iyo private wax ka qabanna tuhunka aan sheegay baa saaran oo mushkiladoo dhan in la wada qof yacni qof waliba businesska inuu meel kaga jiro oo labada group lala kala safan yahay bay tusaysaa haddaysan dadku soo bixin wax ilaa hadda aan arkay oo wax ka soo saaray anigu idinkaa ii sheegayo iga dee saxaafadii jooga laakiin darad baa waxaan akhriyey culamada maxaan ku idhaahdaa oo soo saaray qoraal wada jira oo ay leeyihiin magaca hadda culamada ciwaankiisa ay leeyihiin arrintan inay ka xun yihiin in laga heshiiyo arrintan laga saaro waa ka soxmay waxaan kaloo isagana arkay nin kaloo isaguna sheekh ah oo isaguna ragga waaweyn ka mid oo la yaqaan oo isaguna mid kashoo shakhsiya idaacadda uga hadlay tv-ga uga hadlay waxyaabaha yaryar waa arkay dadkaa yar ay sameeyeen waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin in loogu shukriyo dad kale inay kasoo baxaanna waa loo baahan yahay oo arrintaas qof waliba meesha kaga aadan uu ka qabto lama oran karo iyaga isaya waxaan kaloo ka digayaa oo soomaalidan uga digayaa markii waxyaabahan oo kale ay soo baxaan haddii la weydiiyo oo la yidhaahdo war arrintan maxaa ka mid waa siyaasiyiin isagay bay yidhahdaan arrintaasi crime weeye waa dembi ijraam waaye adeer waxaa la isku hayaa nimankaan guryahoodii iyo xaasaskoodii iskuma haystaan dantaydii iyo dantaadii wey waxaa la isku haystaa lagu dagaalamaya dantii ummadda soomaaliyed wey wax lagu dagaalamaya qayb baana ka tahay qaybtaa ka tahay qabo cid haddaa iyaga gaari kartid gaarsii haddaadan gaari karin cid gaarsiin karta gaarsii haddaadan cid gaarsiisana lahayn adiguna gaarsiin karin ilaahay u bari oo wixii maslaxay dalka ugu jirto inay u timaado ilaahay uga bari yani ugu yaraan yani si aad wax uga qabato ha oranin yani arrin aad adigu banaanka ka tahay oo sidii ninkii markii siyaayeen ingiriiska iyo jarmalku markay dagaalamayeen dagaalkii labaad ee adduunka nin soomaaliya baa loo yeeray raadiyo hargeysa waxaa la yidhi waxaad aydaa lacagta intaan qaado ingiriiska baa ku siiyey intaanan bawne waxaad aydaa jarmalka inay xun yihiin markaasuu yidhi gebigeeda hargeysa inta aan waxgansiintay iyo inta angaajo ku seexdo mala haddii laisku waa isku gawgu yiri haddii laisku tilmaamo marka london baa gubanaysa iyo boom baa gablamaysa maxaa haddii aan ka gabiyey go-aygana ka qaatay maxaa iga gidhiisha waxa dhanka maligi midna diintooda mali midna isku rarmini hadday adeer saa tahay oo waxa aadan shaqo ku lahayn ay tahay oo wax la garan karo laakiin hadday tahay diintaadii iyo dalkaagii iyo dadkaagii waxay sayaan siyaasad baa la isku hayaa waa doqonnimo cusub iyo wax aan caqli galahayn ma aha ee qayb baa waxaan ka tahay inaad u naseexaysaad leedahay inaad wixii qaban karta qabato baad leedahay
aniga inaad ila hadasho iyo inaga aynu ka wada hadalno inaanu isgeesinimo gelin war waxaas waxayna ku wanaagsan ma wax laga qabto ciddii aad u sheegi kartid inaad u sheegto waaye marka taas baan kale qof aan mas'uul ahayn ma jiro taa badalkeeda bulshadu marka la fiiriyo taad sheegtay oo kale oo ah inay bulshadu qaybtooda qaataan siyaasiyiintu qaybtooda qaataan cid walbaba arrintan halkeeda dhinac ka istaagto taa badalkeeda waxaa jira marka arrintan oo kale timaado dad garab istaaga ama odayaal dhaqameed ha ahaato ama siyaasiyiin ha ahaato labada dhinac la ka asafta hebel baa saxan yiraahda inta miidiyaha isugu yaara oo warbaahinta la hadlaan meel walba ka hadlaan yiraahda hebel baa saxan dadkaas ka warnaya dadkaasi hadda waa maalgelintay ka mid yihiin qofka sidaani waxaad ogaataa maalgelinta ku jira qoluu marka uu qoraya qoluu mushahar ka qaadanaya qoluu la socdaa wuxuu rabaa ha u geysta ama position ha loo ballan qaado ama lacag ha la siiyo ama qabiil ha ku raaco ama saaxiibtinimo gaar ha ku jirto aanay wey maslaxaddii ummadda maaha wuxuu ka hadlayaa maslaxadtiisa ah iyo tan qofka uu wata ah marka qofkaasi aniga meel dhowbu ii jooga wax weyne lama aha keliya waxaa wax weyn oo aan ka xumahay qofkaasi inuu joogo position hogaamina oo uusan istaahilin qofka ama nabadoona ama isina ama wasiira ama ugaasa ama magac leh oo waxaas dhinaca iska taagaya aan cilmi ku dhisnay ku hadlaya waxaan ka xumay positionka uu haysto mooye isagu waa gadan yahay macna imane arrin baa ku daraya muhiima oo aan rabo dadka inaan gaarsiiyo oo maanta aan iyadana halka ka sajiro hababka wax loo qaban karo waxaa ka mid ah ummadda oo dhan isu soo baxda barnaamij samaysa oo yiraahdaan iska soo horjeed waanu ka soo horjeedna ciwaankaasaad qoraysaa warqad baad qoraysaa iska soo horjeed waanu ka soo horjeedna dowlad iska soo horjeeda waanu ka soo horjeednaa ma ogolin waa wax qabasho حتى من التلفون كودا كلها هلم منها أوتجين لكن أتكاغ هل كاسا كبون جريسا مقالة سجيس إلى جيس كقبت سينيسا أو إذا علىها يدون كودا لقفا فينيا وانو كسور جدا دولة دي سايستا وانو كن نغني إنف وانو كدالي لقد جوجي شعبو إنو صبح وبنانكو الصبح وكقيني marka qof lama safanin ogsoono waa rabnaa qofkii xaq laga gardanayay in la qabto qofka gardarana in la qabto qofka laga garleeyo in la siiyo laakiin taasi waa arrin u baahan dad gaar iyo waqti gaar ah anagu xukumayno anagu arrinta aan ka soo horjeedno waxa weeye dalkeenu meesha uu marayo iyo duruufaha maanta na haysta iska soo horjeedan tayada ma aha danta ummadda Soomaaliyeed ma aha diintayada ma aha dadkayaga ma aha cid kala ka dambaysa iyo qof xanaaqsan iyo qof bursi doona waa ka dambeeya dan anaga noogu jirta male arrin faniya barraayna ku leeyahay dib hadda gabay ka tiriyay arrintaas marka bay waxa dhici karta gabaygaas inuu dheeriyo ama inuu fani yahay laakiin labada qodob aan ka qabtaan ku sheegaya hadii mooge iyo maage iyo meela daran aadi iyo tuu kalo miiran oo cunaya maalkeena ay maamulaan dawladnimo muruga Soomaha weeyr midigtaada iyo bidixdii oo midiba meel aado oo maamul goboleedyo iyo madax lagu sheegto oo ay shisheeye magantiis yihiin muruga Soomaha waa dadka hadda malaha rag gabayaya ka akhriy markii waxyaalaha aan arkay waxay kartaa in gabayada dheer iyo anigu de aad ma xifdiyo ma warayo laakiin waxaan ka waday yani maanta waxaynu ku faano ma joogno waxaynu wax laga xumaado baynu joognaa mogta marka kulligii inaan soo tagno dawlad goboleedyo dawladii sare federaalka maxaan ku raada baarlamanka maxaan ku raada culimada saraakiisha ciidamada qalabka sida maalqabeenka siyaasiyiinta wax garadka inta isu tagno annaana maanta maalin la isku dhaco ma aha dalka hal la badbaadiyo dadka hal la badbaadiyo waxaan in la joojiyo dooma cuntanto waxan halka in dagaalka laga wado hadda boosaska markaan hadda saaleenay qofka booska u badbaadinayna yaa waay ma inaga boos doonayna maya kuwa booska jooga oo hogaaminaya baa waxaan leenahay wariyaha boosaskiina iska qaadinin oo fiirsa karaabada iyada annaga inaan ummad saafiyan nahay waxa tusaysa war idinku annagu ma rabno inaan idin bedelle ee idinku hays bedelin oo boosaska iska qaadinina maxaa yeelay bedelkiina jileec dalka adaa soo galay iyo dantii guud waayahay barnaamijka gabagabadiisaan kusii dhownahay dabcan dadkuna si badan baan filaya inay uga bogteen arrintan sidaad uga hadashay iyo sidaan u falanqeyn dhacyadan ka fiirinayba haddii ay dhacdo arrintan khilaafkan in la xaliyo oo si hoose loo dhameeyo shaqadii iyo dawladnimadiina ay sideeda ku socoto 4 sano ee soo socotana dawladdu iyadoo isqabsan oo sideeda ay caadi oo aan cidna la kahayn ay ku dhamaysato Soomaaliya maxay tahay Soomaaliya waxay tahay guul dawladda jirtana waxay tahay guul inay ka sarreyso mowqifka intay dadku isxaqxaqtaan inay maaragtay aysan isu dul qaadan karin inay ka saran mareen bay tusaysaa bilcaks inay intay dagaalameen ay heshiiyaan sharaf ka sii weyn markay heshiiska ahayeen bay helayaan oo ah waa dad intay wax dhex mareen haddana isqabtay oo ishagaajiyey
waxay u tahay darsi iyo lesson bay waxay u tahay dadka kale inaan lagu soo degdegin in dhibaato ka jirto dadkii cadowga ahaa oo ay dhici karto inay arrimaha qayb ku lahaayeen bay waxay u tahay jab iyo hungo ay ku hungoobeen dhanka ay kala hayeen bay u tahay dhibaato weyn baa ka raacaysa dadkiina yani meeshaan oranaysa of course waxaanana ilaawi karin dadka hadday isku dhacaan inta badan nabaradu waxaa layihahdaa birtu hadday jabto birtu jabtay sideed ma noqon lafta jabtay sideed ma noqoto bay yidhahdaa xurgufi waa iska jiraysaa gabay waxaa jira la yihahdaa ina alquluuba idaa tanaafara wudduha mithlu sujaajati kasruha laa yajbaru yani qalbiyaalku waa muraayad oo kale muraayaddu hadday jabto inay sideedii kusoo noqoto way adag tahay marka way jiraysaa meelaha qofka wax kaga dhegan yihiin laakiin raganimada ugu sarreysa waxa weeye inay awood u yeeshaan inay wixii intay ka heshiiyaan iska saxaan oo dantii guud ay ka raacaan oo dantooda shaksiga ah iyo inaan midkoodna boos waayo ay ka raacaan annagoo dhan bay guul oo tahay iyagay guul u tahay cidda kaliya ay jabka u tahay waa wixii soomaali cadow u ah taas bedelkeeda hadday dhacdo iska war oo xukuumaddana la cayriyo ama guddoomiyaha baarlamaanka la cayriyo sida wararkii ay ku dhamaato hawsha تزيد الطين بلة بعرفت كم معها مارت ماشي لو قطع مارت ولو سمبر ريحته هذا بيكوسي شو تروح عليه سمبر الحشة دي واحد كان جالس إن شاء الله إكزاكت رزاز أنا عايز واحد عيا إلا ولا سمبر ريحته كله دولة دي علامة سؤال بتاعي دبعتي كنيسة دولة رسول الله بيسو تقاريب يدعو عيسى السفرة تيجي دولة دكاية دولة نمدي يحرم دي يدعو عيسى تكوي تجيب يدعو عيسى أنا يهمني أن الله بينا ولا دعو عيسى waxay guul iyo gargaar u tahay wix cadow Soomaaliyeed ah bay gargaar u tahay marka qofka maanta dib u heshiisiinta diidayo oo in wax la qabto diidayo si toos iyo si aan toos ahayn cadowgii Soomaaliyeed baa taageeraysa waxaan kaloo ka xumahay ummadda Soomaaliyeed aan rabaa inaan u sheego dadka madaxda noqonaya waxaan hadda ka oran lahaa in hadda kadib aan ka saxiixno xukunka qofka doonaya oppositionka doonaya inuusan dalka khalkhal gelinayn in lagu soo kordhiyo inta uu xukunka hayo haddii shacabku goor yimaado laga deg la yiraahdo wax la yaqaan laakiin isagu dalka inuu khalkhal gelin hebel baan rabaa inaan iska riixo hebel baan rabaa inaan iska riixo mid kale rabaa inaan keensado saaxiibkii baan doonaya oo dalkii iyo dadkii oo dhan khalkhal u geliyo in hadda kadib shuruudo lagu xiro khalkhal gelintaa inaysan keenin in laga saxiixo marka haddii arrintaasi ay fashilanto oo sidaa ku socoto horta waxaan uga digayaa inaysan ku ekaan doonin ninka hadda ra'iisul baarlamaanka laga keenay ee labada kale inay keeni doonto ma galaafan doontaa ma wada tuuri doontaa mas calaamad xun bay ku dhajin doontaa laftooda oo nimankii walaalkood cunay bay noqon doontaa ceeb baa u wada taalo midna sharaf heli maayo marka war isdaaye annagu waanu idin daynay oo dantiinaanu wadnaa oo dalkaan idinla dhisaynaa oo dadkiinni baanu nahay baan leenahay ma diideen haddee dalowga aad ku socotaan idinkaa u dumaaye oo idinkaa ku daliigmin oo idinkaa dukdaaka ku noqon soomaaliyana diinteeda dadnada oo isoo noqon dawgay doonta ha qaadiyo saas baa leenahay barnaamijka goysaan soo gaarnay anoo aad kaaga mahad celinaya dhinacyadii badnaa ee barnaamijka intaan ku guda jirnay ka eegtay arrintan mawduucan aan ka hadlayno maanta dhinacyo badan oo xaalku ku jiro iyo dhinacyo badan oo haddii la maro guuldarro ana aad sheegtay ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed iyaga maxaad oran lahayd oo fariina oo gabagabada waa mahadsantahay bulshada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa erayo kooban erayada kooban waxaan oran lahaa ee dalkeena Soomaaliyeed waxaynu ka soo kacnay meel fog dadaalkeena iyo dagaalkeena taariikh badan baynu soo maray taariikhaynu soo maray gadaal ugu noqda axmed guri gadaal ugu noqda sayid maxamed gadaal ugu noqda SYL gadaal ugu noqda dawladii hadda aynu soo maraynay waxaa gadaal ugu noqotaan xornimadeena dhibaatada aynu soo maray maantay dadkii xornimadaa loo soo maray in ay dalkii kala qaybinayaan oo laleeyahay intii la hayay baanu sii kala jarjaraynaa oo dagaalka ugu weyn uu ku jiro Soomaali iyadu cadow hayso noqoto cidii kalena xabiib ha u noqoto oo dawladda ay kala jarjaraan waa nasiib darro ina haysata laakiin nasiib darrada Soomaali oo dhammaan ma wado dad yar baa wada dadka yar oo Soomaaliya kala go'goynaya oo iyagu position ay u helaan awgeed inoo qaybinaya qabiil inoo qaybinaya oo gobol inoo qaybinaya oo magacaan kale inoo qaybinaya oo diin inoo qaybinaya oo waxa aynu dadka kaliya cadow aynu leenahay waa kuwaas cadow ay u shaqeynayaan aynu iska qabanay wax cadow inoo ah Soomaali waa isku reer Soomaali waa isku diir Soomaali waa isku diin Soomaali waa isku dal Soomaali waa isku dadnimo aan kala go'in bay leedahay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed oo Soomaalinimadiina iyo walaalnimadiina iyo diintiina in inta gadaal ugu soo noqotaan aynu isku duumanno oo hal dhinac aynu iska taagno wixii cadow inoo ah oo dalkeena aynu ilaashano xeebihiisa
iyo ayrabooradiisa iyo beerihiisa iyo dalweynihiisa iyo dowladnimadiisa waxaan idinka baryayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan inaad iska ilowdaan innaga waxa yahay yar-yarka ah oo layna ku kululeynayo dhexdeena ah oo qabiil haysta iyo gobol haysta iyo madax haysata inaynu iska ilowna haddaynu danta guud wax noqoto inagoo dhan baa wax noqonayna hadday danta guud daawacantana inagoo dhan baa dhaawacmayna aad iyo aad baan waxaan idinka rajaynaya calaamaadkii aan soo arkay iyo dhaqanka ummadda soomaaliyeed ku aqaan inay maanta kici doonto oo iyadoo oo waqti kale la joogay runtii maanta in la yidhaha soomaaliya toosoo isku tiirsada maantay dan tahay mogta marka haddaynaan isu iman waa kala jabaynaa soomaaliya maanta isku duuma oo haldan wada yeesha waa mahadsantahay aad u mahadsantahay sheekh aad u mahadsantahay waa tahay daawadayaal barnaamijkii himilo ee puntland t v oo toddobaadkan sidaad soo daawateen aanu ku falanqaynay khilaafaadka soo noqnoqda ee madaxda dowladda oo sababa in ay qaar ka mid a madaxda dowladdu xilaalkooda waayaan ama mooshinno lagu ceyriyo isla markaasna uu igala qayb galay sheekh aadan maxamed ciise gaadaale oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed marna hore isugu sharaxay madaxweynaha puntland sidoo kalena ka mid ah culimada puntland uu igala qayb galaysa markaasna ila falanqeynayay anigoo cabdirasaaq xasan faarax aan la socodsiinayay intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkan kiisa xiga intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa anigoo cabdirasaaqa sheekh aadan gaadaale iyo daarood oo dhinaca kaamirada barnaamijka inoo qaabilsanaaba nabaday haddaan la heshiin wadaynan ma imaan karto sababta marka keenaysa waxa weeye waa meeshaan kaayda ka macnaahay saxa waxaa siisid baa ka maasha waa wadnaa howlgalkii aad iyo aad buuna annagu sidaa aanu isleenahay hadda u fiican yahay inaynu noqonno wadaniyiin jecel dalkooda iyo dadkooda inaynu caruurteenna barro wadaninimada dhibaatooyinka hadda jira maalan boobka iyo dhaca iyo tuugada iyo dilka haddaad fiirisid mid qabiil ku salaysan mid dhallinyaraah oo intuu waktigay ka batay waxay ku sameeyaan waayey dadka magaalada ku nool layskama quran jirin waxaa la quran jiray shakhsiyaad ama dad og yahay inay akhlaaq wanaagsan leeyihiin ereygaas oo carabi iyo soomaali labadaba ah waxa weeyaan waa qofka dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa waxqabadkeeda ay ka muuqato dadka waxaa badanaaba askartii waxaa wata wasiirada qaarkood qabaa'il baa lagu keenay tababaraxantaa qaarkood inaynu guriyaheenna ka taabagelino wadaniyadda iyo daljacaylka xabadaha dhacay way tirsan yihiin waa noo tirsan yihiin haddii dadku u bataan naftooda keliya cid u dhimata dalkan la heli maayo cid u halganta la heli maayo cid gaajo ugu adeegta la heli maayo sideeba dhaqso loogu kala gartaa